السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي عجل كان وقابينيه هاي waxaan ku bilaabaynaa division facts waxyaabaha basic oo ah divisionka marka wax xifdinaysa sidii multiplicationkii hadaad multiplication aqoon please multiplication ku noqo haye 1 divisionku waa isku qaybintu dee wax baa la qaybsan jiray weligeed laba wax baan kuu sheegayaa horta eber haddii wax loo qaybiyo eberta haddaan aniga adigu eber qaybsanaa boqol ku qaybsato waxay doontaan waa iska eber ogow taas right wanku marka wanka keliya halkan kugu sameeyey wanka wax kastoo loo qaybiyo waa sidoodii one u qayb waa one two one u qayb waa twogii three one u qayb waa threegii wad ugu dambayn cajalkoo dhan ku soco 9 one u qayb hadda waa 9 hadda 97 divided by 1 waa 97 okay marka wanka waxba kama dhaxayno oo wax iska taqaanidii eberta ka soco labadan imaan labada aniga adiga kala goosanayna wax kasta laba meelood baan kala dhigaynaa laakiin waa inaa xifdisaa xifdis yaraa ku jira halkan cajalkan waa xifdiskaasaad boobsiinaysaa kan iyo ku xiga kadib kuwa dhaadheer baan samaynaynaa insha Allah taala marka 2 divided by 2 maxaa leedahay hadda for example waa 1 day 4 divided by 2 waa 2 kulli saas 6 divided by 2 waa 3 day 8 baa laba kala goosanay waa 4 10 baa laba kala goosanay waa 5 12 baa laba kala goosanay waa 6 14 baa laba kala goosanay waa 7 waa qiyaasta kan waa 8 kan waa 9 20 haddaan laba ku qaybsano waa 10 ujeedada si qurux badan tahay marka isku xijisid marka kor baa laga qortaa laakiin hadhow waxa kugu soo aadaysa 18 laba u qayb marka lagu dhaho horena tirada 9 next goes this 3 gan waa sidoo kale $3 baa 3 qof u qaybisa waa qofkii hal buu helaya maya $6 baa 3 u qaybisa qofkii laba u helaya maya $9 baa 3 u qaybisa qofkii 3 u helaya ku soco 12 u qayb waa ka 15 u qayb waa 5 day marka hadaad si fiican u qortid hatta ina xifdid uma baahni طبعا laakiin waqti hadda markii loo raho 27 divided by 3 hal wax baan kugu darayaa teeda kale waa ina u fikirtaa sidii multiplication 27 divided by 3 waxa way waa 9 9 times 3 naday waa 27 hada gadaal noqotid 9 times 3 hada tirad maxay noqonaysaa 27 times that tirad 9 ka hadda ku dhufatid oo times tirahid waa 27 haye marka multiplication iyo division ku isku mid opposite isku yihiin aan ku celiyataa multiplication iyo division ku waa isku mid opposite way هذا 4 divided by 4 waa 1 4 divided by 8 divided by 4 waa 2 12 divided by 4 waa 3 16 divided by 4 waa 4 kan waa 5 ku soco waa fahamtay sheekada dhamaystiro 6 7 8 9 10 day isku dhufashada iyo waa isku mid iyo multiplication ku iyo isku qaybintu hadda for example 8 4 u qaybi 3 4 u qayb waa aragtaa waa 8 soo ma laakiin haddaan dhahno 8 4 ku dhufo gadaal aadno waxay noqonaysaa 32 tay opposite isku yihiin marka haddaad isku qaybin taqaan isku dhufasho si fiican u taqaan isku qaybintana waa iska taqaanaa insha Allah markii waa weyn kan gaarna arki doonaa hal xabo yar ku xij halka xabo yar baan ku xijinayaa dawaskoog toosidii waa lagu taxayaa 1 ilaa iyo wax lagu taxayaa 10 waayo hadda 15 divided by 5 waa 3 soo ma لذا أفرتن كأسفيرين $40 باشون قيبسن قياس كرتا حيث مركانه كوان فعيا واسدين $60 باشون قيبستين على $60 باشون قيبستين واللح $60 باشون قيبستين شن واتضبا $40 باشون قيبستين واسقال موجودة $20 شن $20 شن قيب قفكي محيليا قفكي أفر بهليا $10 قف شن وكا مركا بيت كان سوس عضا أدو كركا سميه واسكو قصي تا جوجستid korka waa kan mixed ka joojiso korka samee isbar cadal ku xigana sidoo kale u faham oo boobsiinaya shan xabaan soo gelay 9 iyo 8 iyo 7 iyo laakiin waa inay xifdiso way fiican tahay ama multiplication haan baan u fikri doonaa arki doontaa kan ku xiga waxaan samayn doonaa iyadoo dhaadheer si aad isku qaybin dambe aadan warkeeda u maqal caruurtana u bartid halkaas kaaga tagaya waa Dr. بوتان وأذن له السلام عليكم ورحمة الله.